anu waxaan meel yarun baa ku arkay oo wasiirku haddana hadalkiisu u dambeeyay uu ka dhawaajiyay in la soo akhriyana way isaga baahan tahay bal inuu miisaaniyadda inuu noo faahfaahiyo su'aalaha ka furanna way tahay in la dhaqan geliyo qaanuunkan oo kale dhaqaalaha ay uga baahan tahay dawladda iyo meesha uu ka imaanayo maadaama maaragtay miisaaniyaddiina la ansixiyey inuu aad nagu faahfaahiyo meeshaas tan labaad waxaan ku arkay meelo badan oo nabad iyo nolol ay ku qoran tahay iyo dawladda nabad iyo nolol anigu dawlad nabad iyo qaanuunkaana qaanuun waaraya oo dalka Soomaaliya la rabo inuu ka shaqeeyo boqolaalka sano oo soo socota waa dawladna lama yiraahdo dawladda Soomaaliya aan ugu aqaana laakiin dawladda nabad iyo nolol wasiirku meesha uu ka keenay ayaa ranaayo dawladdaas dawladda ay tahay anigu ilaan dawladdii hay'adihii baarlamaanka ka tirsannahay magacaasna iskuma naqaano marka hadduu ula jeedo xukuumadda ama halku dhig waqti gaar ah soconaya laakiin dawladda nabad iyo nolol meelay ka jirtaan uu ma aqaan dawladda Soomaaliyana waa ka tirsanahay marka waxaan rabnaa qaanuun waaraya oo ummadda Soomaaliyeed boqolaalka sano soo socota u jiraya in halku dhigyo koox markaas xukunka haysata halku dhigeeda in lagu qoran maaha aniga aragtidayda marka in meelahaasna laga saxanaamisana waa maasantii su'aasha labaad uu xildhibaankuna weydiiyay ku saabsan eriga nabad iyo nolol horta marka hore kuma jiro meel qodob kamida sharciga kuma jiro hal meel kaliya uu kaga xusan yahay buuggan oo ah warqadan qornay anigu aan qoray ee golaha wasiirada ugu gudbiyay oo aan leeyahay wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu oo gudanaysa waajibaadka qaran ee ay u xil saaran tahay isla markaana fulinaysa siyaasadda dawladda nabad iyo nolol ee ku wajahan kobcinta dhaqaalaha waa warqadan anigu qoray marka halka kale kaga xusan tahay sharciga qodobada kama mid aha taasna ereyga nabad iyo nolol waa sharci waayo halkan markii xukuumaddu keentay barnaamijkeeda ayay ku xustay barnaamijka xukuumadda nabad iyo nolol baarlamaankanina waa ansixiyey ereyga marka annakaasuun baan xigtay oo yidhi barnaamijkeedii baarlamaanka la horgeeyey anoo ka duulaya sharcigaanaan soo gudbinaynaa golaha wasiirada soo gudbinaynaa marka ereygaasu halkaasuu kaga qoraya sharciga meelna kagama jiro waa okay taas waa taas ereygan dawladda iyo xukuumadda waxay u baahan tahay fasiraad horle bay u baahan tahay oo erey bixinta in lagu heshiiyay u baahan tahay wax badan oo inaan ayay u baahan tahay ugu dambeyntii taasna halkaasaan kaga jawaabay si kastay tahay kama tirsana sharciga ereygu kama tirsana loo keenay waxa waaye in la arko la fiiriyo wixii qaldan la saxo wixii wanaagsan la taageero wixii ka dhiman lagu daro intaas waa waxa loo keenay xildhibaanadana xaq ay ugu leeyihiin fikirkooda inay ka dhiibtaan adinka laftiin wax idinku kordhiyo xaq ay u leeyihiin kelimada hadda oo fiqi ka dhawaaji dawladda nabad iyo nolol maaha waa la qabaa ra'yigaas xukuumadda haddaad dhahaysa xukuumadda nabad iyo nolol iska dhahaad adinka laakiin dawladda nabad iyo nolol maaha dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya marka taas waa la qabaa fiqi oo ku mahadsan yahay